ciidamada booliiska gobolka Saraar ayaa xabsiga u taxaabay xogayihii gobolka Saraar Cabdirasaaq Maxamed Cali waxaana xariga xogayaha gobolka Saraar la xiriiray khilaaf akiran oo dhanka maamulka oo muddooyinkii u dambeeyay ka dhex taagnaa isaga iyo gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax odayaal uqaal waxgarad sir jiraayad ku qabtay maanta magaalada Caynaba ayaa si kulul u cambaareeyay xariga lagula kacay xogayihii gobolka Saraar Cabdirasaaq Maxamed Cali waxayna sheegeen xarigiisa loo maray sifa sharci darro oo sharciga waafaqsanayn waa sida hadalka u dhigeen odayaashii waxgaradkani ayaa xariga xogayaha ku eedeeyay barasaabka gobolka Saraar iyo taliska qaybta booliiska waxayna baaq culus u direen xukuumadda Soomaaliland nahay beesha Cali Barre gobolka Saraar ku nool ninka xogayaha ah Cabdiqaadir Maxamed Cali Daad waxaanu cambaareynaa xariga la xiray ee sida foosha xun loola dhaqmay isaga sharci loo soo marin ee sida foosha xun loo qabtay ee hadeer u xiran ee jeelka ugu jira ayaanu cambaareynaa waxa ka dambeeya hawsha barasaabka gobolka iyo taliye qaybeedka iyo ninka bangiga haysta gudoomiyaha bangiga saddexda ayaa arinta ka dambeeyo mudane madaxweyne waxaanu aad iyo aad kaaga codsanaynaa ninka in si degdeg ah oo dhaqso ah loogu soo celiyo sharaftiisa iyo xuriyadiisa gobolka ninka barasaabkii dambiyo badan buu ka galay iska horkeen badan buu keenay halkan waxa fadhida beesha Cali Barre ee degan gobolka Saraar degmada Og iyagoo cambaareynaya xogayaha gobolka Saraar ee gobolka Cabdirasaaq Maxamed Cali Daad xarigiisa la xiray ee sida sharciga dareen sifaaf foosha xun lagu xiray inagoo ku cambaareynayna una sheegayna cid ay qusayso inuu si sharci dareen ku xiran yahay mudane madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa gudoomiyaha gobolka iyo kabaanka iyo taliyaha qaybta saddexdaba in laga bedelo oo si sharci looga bedelo oo laga soo gaaro hadii kale wax meesha ka dhaca shaqa aanu ku leenahay ma jirto nabadgelyo halka ka dhacaysana ma jirto annana waa dulqaadan maanta dulqaadan mayno inka la katiinadeeyay isagoo aan dhiig gelin oo wax dilin usalba intan hadana soo kordhiyay waxaanu halka ka sheegaynaa oo ka cadaynaynaa inaan sifa sharciga lagu xidhin oo sifa qaldan uu ku xiran yahay dabiina loo diiday in laga soo gaaro hawsha hadii aan hawsha degdeg wax looga qabanna wax ka fool xun baa ka dhici doona isugu beesha uu ka tirsan yahay xoghayuhu oo ka tirsan gobolka Saraar way gadoodsan tahay aad bay u gadoodsan tahay ninka xoghayaha Caynaba waxa lagu xiray sifa aan sharci ahayn baa lagu xiray isagoo aan waaran loo keenin isagoo nin sarkaal ah oo aan loo iskaalay oo loo yeelin baa loo soo diray inamo waxaanu ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland arinta inay eegto annaga haddaanu nahay gobolka ninka degmada ninkaas ka soo jeedo ninka iyo ninkii Axmed Caydiid baa nooga qayb galay saraakiisha Caynaba arinta ka dulqaadan mayno waxaanu dawladda u sheegaynaa waxa wallahi aanan ka dulqaadanayn waxa weeye ina bixi wax leey dadka cod buu ka doonayaa reer bariga malaakana isaga meesha ku ayo anagu waxaanu codsanaynaa saddexdan in dadka laga qabto hadii la doonayo wadanka in masaalaha ka dhacdo dawladda waxaanu leenahay kuwa cidna ha u geeyna anana ka xigada Ilaahay xogayaha ugu xiran yahay gobolka saldhigaanu jooga cid allaale cid halkii ugu tagtay ma jirto haddana wuxuu ku xiran yahay sharci darro anaga hadeer waa naloo diiday in dabniina laga qaado wuu xiran yahay waxaanu leenahay hana laga soo gaaro arinta hawsha cidii ay qusayso marka iyadoo aanu mudane madaxweyne gobolka ka tirsanahay gobolka waxyaalo hore dibay u dhutiyo waxyaalo hore aanu u tirsanana waxaanu ka codsananaa mudane madaxweyne saacad ka soo horeyso inaad xurrimadiisi ninka loo soo daayo sida ugu dhaqsaha badan hadii taa la yeeli waayo annagu wixii dhaqa shaqo kuma lihin wax dambe aanu dulqaadan karanaana ma jiro geesta kale telefishinka caalamiga Star oo isku dayay inuu wax ka weydiiyo arrimahan gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ayaa gabi ahaanba ka gaabsaday inuu ka hadlo arrimahan Salabaan Cilmi Saciid Salabaan Kiiko wararka fogaan araga xorta ee Star TV Caynaba.